iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ay ku soo badanayeen isqaqabsiga dhulalka bulshooyinka oo ay leedahay dawladii dhexe ee dalka ka arimin jirtay ayaa waxa go'aamo ka soo saaray dhulalkaasi maamulka Jubbaland waxaana go'aamadii ay soo saareen maamulka kamid ahaa in dadka shacabka ee reer Jubbaland aysan dhisan karin dhulalkii banaana oo ay leedahay dawladii dhexe ee dalka ka arimin jirtay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo sanad dhankiisa ka hadlay arimahaasi waxa hadaladiisii kamid ahaa sida tan dhulka banaan dawladda askari dhulku waa inuu wasaqara loo leeyahay oo dawladii u dambeysay Maxamed Siyaad Barre ay dhul ay bixisay uu yahay ama ha noqdo milishiyaal ama damayaal ha noqdo waxay inta ka soo haray dawladda askari Jubbaland baa la weydiiyay dhulka faraha badan ee la yaashay iyo foostooyinka carrada lagu riixay waxaan uga digayaa dadku inaynan iskhasaarin inta ka badan dhulkaasi gorgortan male dawladda Land Commission insha Allah January waan ku dhawaaqaynaa sanadkan aan ku jiro xeerkii dhulka waa la dhameystirayaa baarlamaanku uu mariyay guddiga si official ah u magacaabayay looyaro ay ku jiraan ururada ay ku jiraan soo dareesay actingkaas qaabku noqonayo haddii barnaamijkaas soo dhameystirmo Land Commission la magacaabana dhulku dawladdu iyala sameynaysa dhulkii warshado ay siin kii real estate laga dhisi kii dadka dallayda loo dhisi meeshii isbartiibay ciyaar loo sameey iskuulo isbitaallo yaa lagu dhulka aad u tirada badan ee dadku ay sheeganayaan ee qof waliba uu nidaamka u qoranayo ma aha dhul oo sidiisa uu qofna u qaadan karayo loona sameyn karayo cid hadda laga aqbalayaan barnaamijka ma jirto askarta waxaan leeyahay ciidamada xuquuq bay leeyihiin waa loo dhisi doonaa insha Allah xaasaskooda xildhibaanada wasiirada cidii madan in guriga loo dhiso waa loo dhisi doonaa laakiin qofna qof kale guriga kama boobi karayo cid kulaalmado u ah cid dhulka qaadan kartaan ma jirto kiiska dhulku waan ku dagaalamayna aniga xukuumadda aan mas'uulka ka ahay inay ku eedeysnaato dhul iyo dhul dawladeed baa la qaatay Cabdi Qadar Iimaan Dhaqane Hon Cable TV magaalada Kismaayo.